الرحيم السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعنو ونكسن قدهان بداوديال meel kasta iyo goob kasto naga daawanaysaan halkani waa telefishinka madaxa banaan ee Xurriya 24 TV xaruntiisa guud ee magaalada Hargeysa daawadayaal waxa la soo gaadhay intaan hawada idin soo marin jirnay war waxaanu idinka haynay dalka gudihiisa iyo gudahaan caalamka warkana habeenkana caawa waxa si wada jir idin ku daadihin doona anigoo Cabdiraxmaan Maxamuud Hayba يعني جو إحنا ذراعين عبد الله إبراهيم حسن. وضبط إذا ورك وجدور كرون لنا وحى كم إذا. شربينا أفريقيا يشينا وعاصمة شينا بلشم كفرمي. ورباهين تعالم كوت وضباط كم ضا بعد وربحين كل صاب سنين السومالي لان وجاي سود دجال كقبوي خليج كعربتا. مريكان كودي ما يعيدن كيس أفريقيا. جمال علي حسين وشيغين السومالي لان عدالة درك شفتو. حلالكي هي المدحدة ورك صحفية ودن كيتوبيا ولا حيوبيه. قار كميدا شركة جناعسية السومالي اليوم معمول كروبتا جناعسية وشيل لك جودة حاجون يعبشوين كجناعسية ما أنت كوي شيء مقالة هرجيسا. أنت سوحة هاي قضبة إذا ورك ودور كرولة مكي هاتنا كسر هذا ورك أيه ورك لفا فحسن. أنكم بلابي وربحين تعارم كوتضباط كم ضا بعد وربحين كصاب سنين السومالي الآن وجاي سود دجال كقبو خليج كعربتا سلفا فهمت وركاسين وجوها يوري عبد الكريم خضر ظاهر wargeyska caanka Telegraph oo ka soo baxa dalka Ingiriiska ayaa shalay daabacay warbixin oo xooga ku saarayo sida Soomaaliland loogu hirdamayo qodob cusub ka soo baxay xogaaminayo xulafada Sacuudiga Imaaraadka hogaamiyay iyo xulafada Qatar iyo Ruushka wargeysku waxa uu sheegay in loolanka awoodeed ee cusub ee dhexmarayaan waxba ka duwanayn loolankii dagaalay qababa awoodii Mareykanka iyo Ruushka ku kala dhexmaray geeska Afrika halka hadda lagu hirdamayay inay tahay marsada caalamiga ee dekada Berbera wargeysku waxa uu sheegay in Soomaaliland faa'iido ugu jira mashaariica Imaaraadka ee dekada Berbera علاقات حلفاء السعودية عبد الكريم قرداء عبد الكريم بشاوي تلفزيون كعالمية حرية 24 TV أرجيسا مريكان كودي ما يعيدن كيس أفريقيا وركاسيو فافاسون حينا إيسا إذا على السعودي وسارد gaashaandhigga Mareykanka ayaa eegaysa ciidamada commandosta Mareykanka ay kala soo baxdo dalka Niger markaana ay soo xidho badagabiyaan xeryaha ay degan yihiin ciidamada argagixisay ee la dirirka qaaradda Afrika sida loo soo xigtay wargeyska The New York Times saraakiil wasaaradda ka tirsan ayaa wargeyska u sheegay in xeryaha militariga Mareykanka ee ku yaala dalalka Cameroon, Kenya, Libya iyo Tanzania iyo la soo xiri doono haddii ay xogayaa gaashaandhigga uu qorshahan ansixiyo hase yeeshee militariga Mareykanka ayaa si weyn u sii joogi doona dalalka Nigeria iyo Soomaaliya sida wargeysku qoray talaabadani waxay qayb ka tahay istiraatiijiyadda uu Mareykanku culayska ku saarayo dalalka baaxadda weyn leh halkii uu kooxaha mididiinta ula dagaalami lahaa talaabadan ayaa sidoo kale timid kadib markii afar askari lagu dilay dalka Nigeria idaacadda Saaqsuudi حرية 24 TV مقالة هرجيسا جمال علي حسين وشيغين السوماليلاند عدالة درك جرتو سيفا فهمت وركاسين وجوها يسوري قدم نقشة سياسي جمال علي حسين وكميدا مسؤولية حزب معافد كاي كلمية يا كهذا عدالة درك وشيغين أي كجرتو سوماليلاند سياسي جمال علي حسين يا شيغين وكورنيل كجماعة سميسة عارة وكتاجسي أي عدالة درك وكتر سنة وحانو يري ويجرت عدالة درك كورنيل كعارة أنا يا كراسة إن عدالة درك جرتو وأنا جاي عندي دنين جرتو أيو يري جمال علي حسين هو رمي تلفزيون كعالم حرية 24 سيدا وكله وحاو شيغين jirto cabasho badan oo laga qabo xukuumadda waxaanu yiri Soomaaliland cidaan cabanayni ma jirto ayuu hadalkiisa sii raaciyay Jamaal Cali Xuseen oo muuqday inuu isku qanciyay inay gaadhay waqtiga uu xaqiiqda ku soo bandhigi lahaa bulshada sidoo kale waxa uu sheegay inay muddadii ay jirtay xukuumadda dambe ee kulmiye ee bulshada sii kala fogaatay waxaanu yiri waxaad moodaa Soomaaliland inay dawladda dambe ee kulmiye tafarruq badan ku dhex jirtay bulshada xagga dhaqaalaha laftigeedana ay dhibaatooyin badan ka
yimaadeen waa anigoo qadan dhaqashaha muqbaahiya caalamiga xuriya 24 Hargeysa. shirweynaha Afrika iyo Shiinaha oo maanta caasimada Shiinaha ee Belgium ka furmay warkaas oo faahfaahsan waxay noo haysaa Muna Cali Nuux. magaalada Belgium ee dalka Shiinaha waxaa maanta ka furmaya shirka madasha iskaashiga Shiinaha iyo Afrika ee Fogac oo sanadkan ay ka qayb galayaan 350 dal oo Afrikaan ah. shirkan ayaa waxaa diiradda lagu saarayaa iskaashiga iyo ganacsiga maalgashiga, iibsiga cusub ee iskaashiga dhaqaalaha iyo dadaalada lagu xoojinayo xiriirka u dhaxeeya Shiinaha iyo dalalka Afrika. shirkan ayaa waxaa Soomaaliya uga qayb galaya wafdi uu hogaaminayo madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ay kamid yihiin wasiiro iyo xildhibaano. shirkan ayaa waxaa muhiimad gaar ah u leeyahay dowladda federaalka Soomaaliya marka la eego dhanka fursadaha ganacsiga maalgashiga ee ka jira dalkeena. madaxweyne Farmaajo oo maalmo ka hor gaaray Belgium ayaa kulan gaar ah la qaatay madaxweynaha Shiinaha waxaana ka wada hadleen dardargelinta xiriirka taariikhiga ee Shiinaha iyo Soomaaliya kaasoo ay ku salaysan iskaashi iyo wax wada qabsi gaar ahaan dhinacyada ganacsiga, maalgashiga, diblomaasiyadda iyo dhismayaasha kaabayaasha dhaqaalaha. Munacayni Xuriya 24 TV magaalada Hargeysa. xilalkii ay hayeen madaxdii ururka saxafiyiinta wadankaasi Itoobiya oo laga xayuubiyay sida warkaas faahfaahinta uu inoo hayso Maariya Biixi. wararka naga soo gaadhaya magaalada Addis Ababa ee xarunta wadanka Itoobiya ayaa sheegaya in shaqadii laga caydhiyay mas'uuliyiintii ugu sareysay ururka suxufiyiinta Itoobiya kuwaas oo sida la sheegay lagu soo oogi doono dacwad. sida xogta aan ku helayno waxa shaqadii laga caydhiyay gudoomiyihii ururka suxufiyiinta Itoobiya iyo ku-xigeenkiisii kuwaas oo muddo 8 sano ah ku magacawnaa xilka shalay laga eriyay. warka ayaa intaas ku daraya in xilkaas la baneeyay loo magacaabay 2 qof oo kale kuwaas oo sida la filayo wax ka bedeli doona warbaahinta iyo wariyeyaasha Itoobiya kuwaas oo magac ahaan jira inkasta oo aanay xukuumaddu cadaynin sababta ay mas'uuliyiinta ururka xilalkoodii uga qaaday. haddana waxaa la wada socdaa in ay xukuumadda cusub bariyahan waday xilka qaadis iyo xil magacaabis iyadoo sida muuqata meesha ka saaraysa xukuumaddii hore ee wadanka iyo dadkii la shaqayn jiray. ururka suxufiyiinta Itoobiya ayaa ahaa mid magac u yeel ah mana jirin saxaafad iyo suxufiyiin hor ah oo xaqiiqda qora ama ka hadla, mana jirin hawl ay dadweynaha u hayeen shakhsiyaadkan la caydhiyay oo muddo dheer xilkan ku magacawnaa sida ay qabaan wariyeyaasha dalkaasi. Maariya Biixi, telefishinka caalamiga ee Xuriya 24 TV magaalada Hargeysa. xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa madaxweynaha Soomaaliland ku eedeeyay in uu midayn kar waayay bulshada ku dhaqan deegaanada Soomaaliland isla markaasina uu maare u waayay haatan dhibaatooyinka dalka ka jira. gudoomiyaha dhalinyarada xisbiga wadani Maxamed Sidiiq Dhame oo warbaahinta Hargeysa maanta kula hadlay waxa uu sheegay in dhalinyaro badan oo haatan jaamacadaha dalka ka soo baxday loo dejin waayay qorshe, taasina ay sabab u tahay dhalinyarada aqoon-yahaniinta leh inay xamar u shaqo tagaan. sababta keenaysa in dadkii aqoon-yahanka ay xamar shaqo u doontaan waa siyaasad xumada xukuumadda ayuu yidhi Dhame. geesta kale xisbiga mucaaradka ee wadani waxa uu iska difaacay eedeymo maalimihii u dambeeyay uga imaanaya xisbiga kale ee dhigiisa Awcid. magaalada jaamac telefishinka caalamiga Xuriya 24 channel Hargeysa. daawadayaal intaasi waxaan kusoo afmeeraynaa waxaan war idinka haynay dalka gudihiisa iyo guud ahaan caalamka. warka caawana waxaa si wada jira idinku daadihinaya anigoo Cabdiraxmaan Maxamuud Hayba يا أنيقو أنا ذي رعين عبد الله إبراهيم حسن. intayn warkan war lamida ku kulmi doono annaka iyo akhyaartii nagala qayb qaadatay waxaan intii ka tagaynaa sidaas iyo amaano Allah.